xaflad ballaaran oo lagu xusayay maalmaha xurriyadda Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Rochester ee gobolka Minnesota. Xafladan oo ay ka soo qayb galeen madaxda magaalada Rochester iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ee magaaladaasi ayaa lagu soo bandhigay astaamaha muujinaya xurriyadda Soomaaliya. Munaasabadani ay soo qaban qaabisay hay'adda SASA ee uu hogaamiyo Cumar Nuur ayaa dad kala duwan oo ka soo qayb galay ayaa waxa ay ku libisnaayeen dharka calanka isla markaana lulayay calanka Soomaaliyeed. Dhammaan dadkii ka hadlay xafladda ayaa ku dheeraaday jidkii dheeraa ee loo soo maray maalmaha xurriyadda. maanta waa maalin weyn oo farxad inoo leh haddaynu nahay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Rochester. waa maalintii ugu horeysay ee aan u dabaaldegnay xafladdii ka dabaaldegii 63aad ee maalintii xurriyadda ee 1 Luulyo iyo 26 Juun oo ahayd markii ugu horeysay oo calanka buluuga laga taago arlada Soomaaliyeed qaybta waqooyi ee Soomaaliya. runaantii marka waxa isweydiin mudan oo in laga fikiro mudan 63 sano maanta dalkeenni xaq u maraya. waxa loo baahan yahay marka inaynu isweydiino ma sidii la rabeeyaa ma wax baa naga qaldan. runtii jawaabtu waa iska caddahay. waxaan leeyahay marka ku boorinayaa dhammaanteen Soomaali weyn meel kastoo aan joogno dal iyo dibad inaan qaadano mas'uuliyad waradeed oo aanu u guntanno sidaan dalkeenna horumar u gaarsiin lahayn. For welcoming me, for inviting me here to represent the Sheriff's Office, but also to take part in the celebration and the importance of what today is to your culture. In the short time I've been here, I've learned a lot. I've been welcomed in and taught some history about what this day means to you and how close it is to our Independence Day and how much you contribute to our community. But I hope that we recognize the culture of the Somali people. We're able to recognize the challenges that you've had in your history and what it took to come here and make this your new home, knowing that in your hearts your old home is still part of your culture and your heart and your home as well. waxaan rabaa inaan halka bogaadin iyo u hambalyeyn u jeediyo hay'adda SASA oo markii noogu horeysay noo suurtagelisay haddaan nahay Somali American in aanu xafladan ku qabsano magaalada Rochester. waxaan rajaynayaa sanadaha soo socda SASA iyo ciddi kaleba in ay suuqaya darto dabaaldega wiiga Soomaaliya iyo maadaama ay soo dhow yihiin dabaaldega Mareykanka maadaama labadan haba. waxaan u mahad celinayaa ilaahayga qaadirka ah ee meesha suuqa keenay noo suurtageliyay inaan isu imaano iyo marka labaad walaalkan Cumar SASA oo 23 sano oo Rochester deganaa waa markii koowaad aan arko calanka loo dabaaldegayo ama dadka la isu keenay. waxaan rajaynayaa waxaad ka dambeeyeen in inta ka bataan dadweynahana waxaan ka codsanayaa inay ka soo qayb galaan maalinta ciidda calanka Soomaalida loo qabanayo ee intan iyo 10 laabkeed in laga soo qayb galo. waxaa laga yaabaa inaan ka mid ahay generationkii ugu dambeeyay ka soo gaaray marka calanka la saarayay 6 jir baan marka calanka la saarayay maanta waxaan u taageeray iyadoo 63 sano ka soo wareegtay. ilaahaygi subxaana qaadiraha suuqay keenay meeshan nabadda ah maanta Peace Plaza inaanu ugu ciidno dabaaldegii muxuu ahay sanad guuradii 63aad ee laga joogo markaan xurriyadda qaadanay. wax badan waa laga sheekeeyay isaan xurriyadda u qaadanay iyo wixii la soo maray. ciidaha islaamka iyo xurriyadda maalmaha xurriyadda oo iswaafaqay oo ismakaabsaday oo isku soo aadeen 3 munaasabadood oo ummadda Soomaaliyeed ay leedahay 26 Juun oo maalintii ugu horeysay calan qaadanaya 27 oo maaragtay maxuu ahayd iyaduna maalin aanan ilaaba insaan habeen soo jeedo waa midda kaliya hoon garto habeenkii maalin 24 hours aan seexan arinta darteed Djibouti inay xurowdo tii ugu dambeysana waxa iyo 1960kii maalintii midowga ummadda Soomaaliyeed ay midowday
iyo ciidaha oo ciidul adha ciid weynta waafaqday intaba ummadda Soomaaliyeed waan ugu hambalyeynaa gudaha iyo dibaddaba inta ka bacdi waxaan si gaar ah aanu leeyahay waa mahadsantihiin waa mahadsantahay Umar Yusuf Nuur ayaan leeyahay iyo hay'adiisa saasa waa community u jira magaalada hogaamiya u shaqeeya danihiisa yaqaana hambaliyaan leeyahay markaas sigana aad baan ugu hambalyeynaya inta Mareykan baa joognaa Yurub iyo Mareykan iyo meel walba adduunka oo dhan waa laga daawanayaa Soomaaliya xorriyadda maanta waa la daawanayaa Soomaaliya waxaad ogaataan xamar haddaad daawato ama Soomaaliya daawato quruxda kaliya la siisanba dadka quruxdiisa iyo haybadiisa lama siisto marka aan ku dadaalno dadnimo aan muujino caruurta iyo yararka hadda meesha aan ku dhashay hal la baro hal la geeyo adduunyada dhari turista haddaad maqasho waa dhul aqoon-yahan weeye buuray fuulahayaan meel walba waa soo caynaya marka way ogaanayaan adduunkay ogaanayaan wax ka jira Soomaaliya ha noolaato maanta waxaa farxad ii ah inaan Mayo Clinic albaabkeeda horteeda caawa aan ku qabanayno xafladda 1 Luulyo 63 sano kadib 63 sano kadib waa markii ugu horeysay ee Rochester Somali community intu isku soo baxdo oo horkacayo gudoomiye Umar inaan nimaadno in front of Mayo Clinic. Today we celebrate the 63th anniversary of Independence Day in Somalia in front of Mayo Clinic, in front of the heart of Rochester, Minnesota. I just want to say thank you for inviting me, for including me. This is fantastic. I'm going to be brief because I don't want to take too much time away from the celebration. But we, as a community, are better because of our diversity. And having events like this, with delicious food and music and dancing is fantastic. And I'm so grateful to be able to be here and be in community with all of you and friends and family. So this is fantastic. Thank you so much. إلهي سبحانه وتعالى وحي كلا سبينا هي هدي قف ما سبيا ويكدي ديان هدي قف هناك سبينا ويكو أيد هيان با إلهي سبحانه وتعالى صلاة تكون هيان سب ما تزكى بعين هيان إلهي بأضيع هيان نايم حد بأضيع هيان صلى الله عليه وسلم ساس با إلهي ليه ضدك إلهي بأبن حارسنا هيا مركا وحان إلهي كبر إن ضدك إلهي ونحسنها نقدره ضدك إلهي ونقدر إلهي كنا جينا سبحانه وتعالى وحان أدرس وين هي أستاذ عمر يوسف يعني ماشي نقول ما ومد مسلمين تا وكم مرتقى هذا يصير له حصه تاريخه يحصته يوم مارت دبادقودي أي هذا سودوينا والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله عليه. I just want to share a little bit historic background. The 63 years of independence in Somalia. Somalia was divided by the colonies into small nations. And the 5 star, what they stand for, that is in the flag, in the middle of the flag. Is the division of the Somali, how it was divided into 3 and into 5 by the colonies. So Somalia was colonized by British, Italy, and French colony. So one part is the northern part of Kenya that was given to an annex to Kenya by the British, and the other part is the Ogadenia region, which was also annexed to Ethiopia by the British and the colonies as well. And Djibouti became independent in 1973 from French colony. And then the Somali, the 2 left, the north and the south joined together in 60, which the flag was raised on the 1st of July 1960. So that is the celebration behind it and the story behind that star in the middle of the flag that we celebrate every day, and we try to be honored by it and enjoy the fruits of those independence. Unfortunately, Somalia has suffered a civil war and setback in 1990. That was, but now a surviving nation back in its tracks again and continue to rebuild. And we hope it continues to see the fruits of it, as we have seen in the past years that when we enjoyed those independence days. dhammaan dadkii ka hadlay xafladda ayaa ku dheeraaday muhiimadda xorriyadda deeq darajo Universal